kii oon live-ka kagala qayb galay xitaa muuqaalka la duubay YouTube-ka ku jira qofka ka dhex hadlayay waa aniga aan kala qayb galay markii Axmed Baqaya uu soo qabtay ayaan inantan arrinkeeda maqlay dadkii ugu horreeyeen u sheega waxa ka mid ahayd muuqdheer oo sidaas oo adiga laftaada warku kugu soo gaadhay aqoon kale umaan lahayn wallaahi xitaa meel ay ka timid qabiilkeeda dee bad kaleba ma gelin waayo marka aad arkayso hawl kuu taalla oo adiga shakhsiyan ku taalla qof kastoo geliyay wax kale kuma mashquulaya ma qabiilkaaga war wax dhintay baa tahay qabiil baa ku hormaray gabadhan gabar Soomaaliyeed oo rafaadsan weeyaan oo caawinayno kan war degdeg u qoran tahay ku soco lijano ku soco maya dadku way dad badan oo iska xumaan jecel baa jira laakiin wallay naga tay saddexdeeda midkoodna la reer maaha anigu sidaan filaayo moogtay laakiin midna gubaysa waxa weeye inaan walaalnimo iyo islaamnimo iyo wada dhalasho aan ku caawino oo waa waa gabadh inala dhalatay oo caruurteedii yarayd laga haysto caruurtana waa caruur Soomaaliyeed la haysto hadday diintay in la badbaadiyo raba hadday dhaqantay in loo badbaadiyo raba waa caruurteennii yarayd marka goofanka taa haddaan ku yar darsado fikirkayga maanta shakhsiyan markii live-ka aan ku jirnay kadib ayaan WhatsApp-ka ka wacay inanta waxaan ku iri walaalay Axmed goofan buu furay goofanka anigoon Axmed arkay oo soo qaatay linkigiisu profile-kayga yaallo haddana adigaan ku weydiinaya wax lagu ururinayaa goofanka raalli ma ka tay oo ma ku kalsoontay waan ku kalsoonay bay igu tiri afkeeda anaa ka haya weedhaa marka meel kasta wax loogu ururinayo way igu tiri maanta igu tiri WhatsApp-kan ka wacay WhatsApp-keedaan ka wacay waad ogtiin labadiina oo maqaatiina numberkeeda hayo goofonka ma adiga mar kale ku celi ma adiga sameeyay mise waxa sameeyay Axmed ma samayn anigu Axmed baa sameeyay fikradda goofanka aniga ayaa lahaa laakiin anigu ma samaynin waayo anigu waxaan diidayay in ma garanaysaa kaadhkayga aan ku sameeyo ama aan ma garanaysaa dhaatadayda geliyo laakiin Axmed baa sameeyay goofanka Axmed Baqaya ayaa sameeyay good ما سنت فرح عادي laakiin waan weydiiyey inanta muuqdheer xitaa way ka warhaysaa inantu inay noo sheegtay in bilaa kaadh ay tahay soo ma ogid walaalo aada weyn way sheegtay dhaxtaa war gabadha qolada ka rabtaa de gabadha qoladeedii caruurta waaniga aanu mar hore idin sheegay ana waxa la qariyay xidhay wallahi anu ma og wallahi billahi been kuma sheegay yani ana idin sheegay ودارودي هوية markaas si kastaba qofkii xitaa imikana dhageysanaya isla wax sadaqayso imikada afurkii baa soo dhow reer Germany profile-kayga hadduu tago goofanka wuu arki karaa xitaa qofkii ku adag sida goofanka loo isticmaalo si kastoy tayba waxaan jecelahay inaanu sadaqada u baxsanaya aanu la dhaafin oonu garan waayin oonu ku adkaanin wuu ila soo xiriiri karaa luuqa waan u sharaxi karaa siduu ugu diri karo هذا وين marka waxaan ku soconaa waxa weeye ilaahay nagu ogi waxa weeye in inantaasi caawimo hesho waad ku mahadsantay walaalo inaad maanta oo dhan wallahi been ku sheegmaayo waan seexday waan soo toosay anigoo seexdo soo toosay baan arkay adigoo ku jiro waan yaabayba waayo markaad ku jirtay kowdii maalnimo imika waa 19 maalnimo 7 saacadood baad live ku jirtay 7 saacadood فيديوغي كوبادن gabadha ka soo diyaariyay baan ku sheegayba anigu gabadhaas inta ay ilmaheeda meel ku ogaanayso ee wuxuu la dhahayo garabkeedaan taagnaanaya saddex ilmood oo Soomaaliyeed oo waxa weey hooyadii dhashayna 4 sano laga haystay adduun laguma arag laguma maqal yani si personal ah baan u xanaaqayba markaan maqlayba waayo hooyo xageed ku aragtay lagu leeyahay ubadkaagii intaanu ka qaadno halkan ku reebanaan adigana ku tarkileen xagee ka timid hooyada markii dhalaysay rafaadkii ka soo martay meeshay la soo martay yaa ka dhalay يعني اسمه ويدينا يا waxaas oo dhan hooyo saddex ilmood ay dhashay hal bar xaf laga siiyo lagu dhahay adigana wadankii baan ku celinayna yani iyaga laftirkoodu way og yihiin bini'aadanimo wax la yiraahdo bay yaqaanaan ee bini'aadanimadoodii intay dhinac mareen marka waxaan anu soo istaagayo ma taqaanaa hal hayf baan maanta keenayba waxaan idhi sharcigii waa kan gabadhana sharciga agtiisa lagu hayaa inta sharciga lagu soo ridayo ee ay sharciga ku helayso ciyaalkeeda ama ayna ku helin anu ka hadhi maayo haddii gabadha falal ay ku soo qabtaan ilaa wadanka laftirkiisa qasab wax la yiraahdo ma jiray sharci un baa jira Soomaa sharci baan ku raadinaynaa
gabadha haddii falal lagu soo helo sharci waxaa yaalla ciyaalka in hooyada laga qaado haddii ay waxaa samayso marka anu waxaa taaganahayba yani perfect kumay sharciyadii jarmalka ma wada aqaano laakiin intaan ka aqaanay bay hadda maraysaa hooyadan 2 bilood bay waddanka joogtay markii la yidhi waxa weeyaan ciyaalka markii laga qaaday waayo xilligaa maba ayna aqooninba sharciyada jarmalka xilligaa iskool bayna tegin kaan bay ku jirta iskool bayna tegin sharciga jarmalka looma dhigin waxay ka warhaysay ma jirto islaam bay istagaaleen islaantii ay istagaaleen iyadii waa la siray hal mar baa laga qaaday wixii oo dhan ma caddo wixii markaa inaan social media ku caddayno oo wixii inagoo dhammaystiran magaaladay joogtay iyo kaal shuruu yamaan haynba laga bannaan baxo halkaas waxa weeyaan ololahaas baan rabaa inay socdo marka haddaba intii halkaa laga soo qaado halkan la keeno oo sharcigiya oo sharciga lagu rido hooyada marka lagu rido markaas baan u kala hadhaynaa iyada iyo looyarka iyo dowladda dushaasaan ka daawanaynaa laakiin inta hooyada laleeyahay intaanu ku kaxayno oon ubadkaaga kaa reebna saddexdaa ee meelaad ku dhashay si aad u dhashay rafaadaad ka soo martay cid ay yihiin aanaan garan intaan kaa reebnaanu waxa weeye xagga diinta xataa ka bedelayna saan doonna ka yeelina dee ka yeeli mayno haddaan soomaali nahay wixii dooni ha nugu dhaco wax nugu dhacayaa ma jirto ilaan keligiin germany ma joogta war haaye qofkan xanuunsanaya war adiga kan weeyo walaalo haddii aad karto markaad lifeka noocan oo kale ku jirto haddii aad karto waxaad samayn kartaa dhowr qof oo asxaabtaada ka mid a moderate saar si ay commentiyada wixii negative inooga xanibaanba aad u weyn moderate saar dhowr qof oo asxaabteena ka mid a moderate saar si ay commentiyada uga warhayaan iyagu hadda afur baan samaynayaa waxaad samaysaan insha allah wixii afur ka dambeeya haddaad joogtaan idkana waa baxaysaan baan u malaynayaa caawa ayaan anu isku dayayaa meesha ama hore inaan tagno marka insha allah walaalo waan isoo qaban doontaan haddaan mar labaad idinku soo noqdo insha allah aad baa u mahadsanta walaalo muuqdheer sidaad magaranaysaa cid walba u gaadhsiinayso runtii kaalin weyn baad ka qaadatay hawshani waad mahadsantay walaalo walahi waa qasab dhammaanteed مقدار وقبضنا او يعني ولا تشمد انت ولا تشمد هذا وين فقرات مصرياني تاسو قبانيا او كسو رئيسي قبضن كله marka waxa weeyaan Soomaali hadaan hayeen meel ubad cadcado Soomaaliya oo soo kacayo oo nas kordhinaya dad waayeelo horta walaalo qof dad wanaagsan aad tiin maasha Allah horta bil Ramadaan waa wax wanaagsan aan sameynaysin marka walaalo aniga diyaar ka ah ma fahant aniga waxa waan deganahay ma fahant kaal shuru waad degan tahay abo waa ka warhaysaa miya waxaan socday gabadha laga qaatay ciyaar si fiican abo si fiican sax marka waxa waaye waa ka qayb galeena waan wax fiican gabadha in loo kaco way fiicneed Soomaalida abo waa xaasidi waa laga wada seexray ma fahant marka ilaahay adika idin soo jeedi alxamdulillah waa marka walaal anagu Soomaalinimo aan ku caawinaa gabadhaas Soomaalinimo waa dad wanaagsan ma sha Allah haysta ma waxa inta marka dadka lama saaro wala saaro ha akhrin dadka dad xun waa islaamnimo ma Soomaali waa muhiim inaan akhriyo waxa weeyaan dad ba iyadii baa laga yaabaa inay soo gasho dad iyada garanayo oo caawinaya laga yaabo dad iyada rabo inay lacag siiyaan gabadha ku sadaqaystaan baa soo qori karaya oo dhihi karaya wax halkan ka caawinaa marka waa muhiim inaan akhriyaa qofkii de waxa weeye ninkan laftirkiisu negative saa u si weyn ma oo ma ay tamaye uu iska haraabaysanaya isaga laftirkiisu marka walaashay reekaal shuru haddaad tihiin dhaliil weyn baanu idin haynaa inaad gabadha caawisaan ood garab istaagtaan ood waxa weeyaan ayay ahayd laakiin way dhacday ما والله قبلها ولا هاجرد والله سفيع inaad garab istaagtaan bay ahayd laakiin waa ay dhacday laakiin haddana kani lifekii ugu dambeeyay ma ahaanayo kii ugu horreeyay weeyaan waa bilow sheekadu gabadhaasna inta aan sharciga ku ogaanayno waanu garab taagnaanaynaa walaashay idinkuna walaashay soo dadaal weeyaan barnaamijyo sameeya xagee wax loogu soo hagaajinaa hadii gabadha marka meesha xagee GoFund baa loo sameeyey waxaa kaloo samayn karaysaa layfaf bay soo geli doontaa caawa mid bay ka ballansan tahay habeen dambe kaygay soo gelaysaa layfafka haddaad wax ugu soo diri karaysaan waa ugu soo diri karaysaan siyaabo kale haddaad u caawinaysaan 3 qof baad soo qaban kartaa maan ku soo qabtaa walaal nuuraan waan ku soo qabanaya walaal waan ku soo qabanaya waxa weeyaan siyaabo kale oo fara badan haddaad dee war rabtaan inaad ku caawisaan walaashi waad ku caawinaysaan mar walbaba sharaf karaan malema وانا دي السلامة
waan kaa qaadnay walaal soo dhow qofkii jecel weeye waxaan ugu yar dari lahaa qofkii jecel inuu ma garanaysaa xagga goofanka fahmaye raba inuu ka caawiyo waan soo qaatay link